I turned to what I wrote in it. I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. Do you believe? Ну, не все. А что невозможно, простите? Предательство. Вы так жестко сказали. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine Putin kuma ekaan oo kaliya inuu daldalo saraakiishiisa sarsare ee ciidamada ee isku daya in ay qiyaanaan xitaa wuxuu daldalay ama dilay qof walba raashaan ah darajadu doono ha lahaadee ee isku daya in uu qiyaano dalkiisa. haddaba warbixintan waxaan idinku soo gudbin doonaa sheekada la yaabka leh ee ku saabsan mid ka mid ah duuliyaasha ciidamada Ruushka oo lagu daldalay gudaha dhulka Spain kaas oo ka goostay ciidamada Ruushka intaas oo kaliyana kuma ekaana qiyaano aad u weyn kula kacay dalkiisa kadib markii diyaaradii uu waday oo nooca qumaatiga u kaca ah iyo laba ka mid ah kalkaaliyaashiisa uu ku wareejiyay ciidamada Ukraine. ma jirin qof la socotay qiyaanada uu sameeyay balse wax walba waxay kala cadaadeen markii diyaaradii uu waday ay soo caga dhigatay dhulka Ukraine gaar ahaan mid ka mid ah magaalooyinka ay maamulaan ciidamada Ukraine waxaana loo sii diyaariyay ciidamo qaas ah kuwaasoo ka taqalusay oo dilay labadiisii kalkaaliye. haddaba intaas kadib maxaa dhacay? inkastoo sirdoonka Ukraine ay duuliyahan qiyaanay dalkiisa hooyo siiyeen lacag dhan $5 milyan una sameeyeen sharci iyo aqoonsi been ah isla markaasna ay dejiyeen gudaha Spain gaar ahaan magaalo xeebeed dhaca badda Mediterranean-ka iyagoo aaminsanaa in sirdoonka Putin aysan heli doonin. laakiin war ka soo baxay sirdoonka Ruushka maalin ka hor dilka duuliyahan oo lagu magacaabo Kosminov waxay sheegeen in Putin ay ka heleen amar ah in la dilo qaa'in walba oo Ruushka qiyaano meeshuu doono ha ku sugnaadee. ficil ahaana maalin kadib markii uu warkaas soo baxay laanta sirdoonka Ruushka waxaa la helay meydka Kosminov kaasoo ay jirkiisa ku yaalaan 12 risaas. sidoo kale waxaa gabi ahaanba la gubay oo dambas laga dhigay gaarigii uu watay si aan loo helin faraha raggii dilka fuliyey oo loo badinayo in ay yihiin sirdoonka Ruushka. dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka golaha ammaanka Ruushka Dmitry Medvedev oo ka hadlay dilka duuliyahan ayaa ku tilmaamay in uu ahaa qaa'inul wadan uuna u dhintay sidii eyga oo kale. labada kalkaaliye ee saaxiibadiisa ahaa ee diyaaradda la saarnaa ayaan markii hore ka warhayn shirqoolka uu u maleegay saaxiibkood. markii uu diyaaradda ka dejiyey gudaha Ukraine ayna arkeen ciidamada qaaska ah ee Ukraine oo ku sugaya dhulka ayay argagaxeen laakiin waxba ma aysan samayn karin sababtoo ah Kosminov ayaa ahaa qofka kaliya ee diyaaradda wadi karay. intaysan diyaaradda soo degin balse dhulka u soo dhowdahay wuxuu dareemay walwalka saaxiibadiis iyo in ay ogaadeen qorshihiisa wuxuuna damcay in uu qalbiga u dejiyo oo uu been ku qanciyo. markii ay diyaaradda caga dhigtayna waxay isku dayeen in ay baxsadaan oo cararaan balse isla markiiba waxaa toogtay ciidamada Ukraine sida laga soo xigtay madaxa hay'adda sirdoonka militariga Ukraine Kirilo Budanov. filim kooban oo laga duubay ka hor inta aan loo sii gudbin Spain Kosminov ayaa ugu baaqay duuliyaasha kale ee Ruushka inay ku daydaan isaga wuxuuna ku yiri kama qoomamay doontaan. Ukraine waxay u dabaaldegtay guushaas duuliyaha Ruushka dabayaaqadii xagaagii hore sida inuu ahaa afgambi oo kale. qofna horay uma samayn laakiin waxaan rajaynayaa in hadda aan balaarin karno saameynteena. sidaas waxaa yiri madaxa hay'adda sirdoonka militariga ee Ukraine. si guushaan ay uga faa'iideystaan dhinaca warbaahinta sirdoonka Ukraine ayaa duuliyaha qiyaanay Putin waxay soo istaajiyeen warbaahinta la iska arko waxaana filim kooban oo dukumiinti ah oo laga duubay lana soo geliyay barta YouTube-ka ayaa Kosminov waxa uu ka sheekeeyay qaabkii uu diyaaradda ula soo gooyay iyo sida uu u raacay qorshe bilo ka hor ay u diyaariyeen sirdoonka Ukraine. wuxuu kaloo sheegay inuu dareemay in dalkiisa uu si cadaalad darro ah oo dulmi ah ugu duulay Ukraine. sidoo kale muuqaalka uu duubay wuxuu ku sheegay xilligaas in uusan u baahnayn in uu u baqo ammaankiisa maadaama uu ahaa mid ku adag diinta Kirishtaanka ee uu aaminsanaa. duuliyaha Ruushka wuxuu ka helay Kiev lacag u dhiganta $496,000. sidoo kale waxay Kiev siisay damaanad qaad ammaan oo balaaran waxayna dejisay meel qarsoodi ah oo ku taal gudaha dalka Spain balse sirdoonka Ruushka ayaa si fudud ku helay xogtiisa kadibna dilay. sirdoonka Ruushka ayaa weligoodba beegsan jiray muwaadiniinta Ruushka ee isku daya in ay qiyaanaan dalkooda ama u basaasaan cadowga. mid ka mid ah websaydyada Ruushka aadna u taageera Putin ayaa ka hor inta aan la dilin duuliya Kosminov waxaa lagu qoray sidan: qaa'iniinta ma sii noolaan doonaan waqti dheer dhowaa ama dheeraa waa laga argudan doonaa.